bulsho way ka gumbalaaran tahay koox dad ah oo qolof ahaan iyo jir ahaan meel wada jooga waana ka sal balaaran tahay oo waxa jira xiriidha inta ka balaaran oo ah kuwa ruuxiya kuwa taariikhiya iyo kuwa diin iyo aqoonta iyo dhaqan bale oo ay bulshooyinku markaasi ay ku wada joogan sidee bay hadaba bulsho u samaysantaa ama u dhalataa bulsho si ay u samaysanto maxay yihiin xiriidhada asaasiga ah iyo dabarrada isku hayn kara ashkhaastaas sidee bay sax dabarradaas iyo xiriidhada iyo cilaaqaadka bulshada dhexdeeda isku haya ay u burburi karaan door intee leeg baa dhaqanka iyo diintusa ka qaadan karaan jiritaanka ama samaysanka hore ee bulshooyinka بسم الله الرحمن الرحيم نبض دمانتين با كسو دوادا كلن كلا iyo taxanaheena buugadaag kulankan buugaan ku soo qaadanna waxa la yiraahdaa miilaad mujtamac shabakad cilaaqaat al-ijtimaaciya oo macnaha noqonaysa dhalashada ama ukanka iyo bilowga bulshooyinka xiriidhada iyo dabarrada isku haya mujtamacaadka iyo bulshooyinka kala duwan buugan waxa qoray mufakkarkii weynaa ee muslimka ahaa ee reer Algeria Malik bin Nabi waxaanu ka tirsan yahay taxanaha loo yaqaano mushkilaat al-hadara oo uu leeyahay qoraago buugan markii ugu horeysay waxa lagu qoray afka Faransiiska laakiin waxa afka Carabiga u soo turjumay Abdi Sabuur Shahin oo ah markaa nuqulka kan aynu akhriyayno waa buug aad u kooban laakiin nuxur iyo mucaad u weyn oo xog iyo afkaarba sida buugan Malik bin Nabi sida ciwaankiisa ka muuqata waxa uu kaga sheekaynayaa sidee bay bulshooyinku u samaysmaan ama u dhashaan ama u abuurmaan maxay yihiin waxa isku haya bulshooyinka iyo ummadaha dabarka iyo xiriirka isku haya muxuu yahay sidee baa ay bulshooyinku u burburaan dhaqanka iyo diintuna door intee la eg bay ku leeyihiin burburka iyo dhismaha bulshooyinka guud ahaan wuxuu ka warramayaa waa maxay bulsho ama mujtamac muxuu yahay wuxuu sheegayaa oo uu Malik bin Nabi leeyahay mujtamac iyo bulsho ma aha oo kaliya kooxdada oo meel ku wada nool oo qolfof ahaan iyo qolof ahaan u wada nool laakiin way ka gumbalaaran tahay waana ka xeel dheer tahay bulshadu intaas bulshadu buu leeyahay waa dad dan iyo duruuf wadaaga waa dad leh dhaqan iyo nidaam iyo habay u nool yihiin waa dad leh aragti iyo ujeedo guud oo midaysa oo ay u nool yihiin waana dad markaa ruux iyo aqoonta iyo qiyam gooniya oo ay dadka kale kaga duwan yihiin ay leeyihiin wuxuu ka warramayaa oo uu ka sheekaynayaa Malik bin Nabi bulshooyinku inay laba nooc inta badan u unkamaan ama u samaysmaan ama u jiraan aan ilaahdo mid wuxuu leeyahay waa bulsho ugu yeedhay bidaa'i ama bulsho berbilow oo aan inta badan jirin taariikh ama sooyaal ay ku abtirsanayso samaysankeedii hore ama la garan karaba oo la og yahay waxaanu tusaale u soo qaadanayaa tusaale ahaan dawladihii iyo bulshooyinkii Afrikaanka ahaa isticmaalka ka hor noloshooda inay ahayd markaa dawlado inta badan inta la garanay meesha ku dhaqnaa waqti cayiman iyo buleeyahay iyo sooyaal cayiman oo ay ku abtirsanayaan ama la garanayo xilliga bilaabmeen ama dhasheen ma jiro laakiin inta badan buu leeyahay bulshooyinka adduunku waxa ay u samaysmaan ama u abuurmaan waxa weeyaan oo ay noqdaan waa bulsho sooyaal leh oo sooyaal ku abtirsata oo taariikh iyo waayuhu ay sameeyaan wuxuu leeyahay bulshada markay waayuhu sameynayaan ama ay unkamayaan ay abuurmayaan waxa weeye waxa sal u ah marka koobaad in uu jirto marka fikrad ama unug iyo sal bu ay ka bilaabmayso oo ay ka unkamayso taana waxa keentay buu leeyahay marka duruuf iyo waayo ay la soo darseen ama caqabado adduun ama ku dhaqaale ama ku fikir ha noqdee ayaa keenaysa marka in ay bulsho ay u guurto ama ay movement iyo dhaqaaq ay samayso oo ay marka abuurto marka ama ay sameeyaan marka bulsho kale tusaale wuxuu soo qaadanayaa uu leeyahay نبي إبراهيم عليه السلام إلهي مركو قرآن كله إن إبراهيم كان أمة نبي إبراهيم أمة ما هين بوليه لكن وحوها قف وحسس ذي بوليه أو أصل أوها أو بؤي أنب يبربلا أوها فكرة أي أمة كل قنته يأركت أمة بوسيدي تاسا كانت بوليه مركا أمة إني دلته أمة وحا كينس إني دلته أو مركا وجوه الرئيس السياسة ودقة يبوليه فكرة يأركت إني ستو أركت أنا أنت بدن قف بسيدة بوليه لكن ضد وضع السعودة أو أمة الله يراها ما جرت قف كبلاوانتا تاسا مركا باهدا أو بلشة بدن قاعدة وحلي مركا فكرة داسي وإني قاعدة dadkii marka ay ku qancaan ay qaataan waxay keenaan buuleeyahay marka dadkaasi ay u istaagaan inay ka shaqeeyaan oo ay qabtaan shaqooyinkii marka fikradan lagu xaqiijin lahaa fikradaasina laakiin waa inay noqoto marka koobaad fikrad ay dhamaantood ay ku qanacsan yihiin oo ciidina buuleeyahay kama shaqeynayso fikrad marka aanay ku qanacsanayn fikradda marka
waxay keenaysaa buu leeyahay marka inay yeeshaan dan guud, inay yeeshaan dareen guud, inay yeeshaan marka aragti guud ay wax weeyaan arrimaha sida ay u wajahayaan, taasoo marka keenaysa marka itijaah iyo meel ay ku jihaysan yihiin iyo himilo iyo arrin ay xaqiijinayaan. wuxuu leeyahay marka taasi waxay keenaysaa marka ay ummadii ay ka shaqayso aragtida ay u istaagto, ay u dagaalanto, ay macnaha wax walba u bixiso, intaas marka waxay abuurtay buu leeyahay cilaaqada markaas samaysantay buu leeyahay markaas dabarka iyo wax isku ahaanshaha iyo shabakadaas dadka isku haynaysa ee ummadnimadu ay timaata. ummadnimadana buu leeyahay halkaas ay ka dhalataa. tusaale ahaan buu leeyahay nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam markii uu yimi isagu fikirku siday, laakiin bulshada muslimkiihi may dhalan oo may iman markii uu nabi maxamed soo baxay, laakiin waxay dhalatay oo mujtamaca islaamiga muslimka ah uu dhashay markii hijrada Maka laga baxay ee Madiina la tagay, markaasay bilaabantay buu leeyahay ummadda mujtamaca nabi maxamed uu sameeyay ee muslimka ah markaas uu abuurmay oo uu sameysmay. wuxuu leeyahay taas maxay ku timi? waxay ku timi waayo dadka ayaa ka wada shaqeynayay, xubnaha iyo kooxda dadka ah ee aaminsanaa fikradda nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam la yimi ku cusbayd ee ku qanceen ay u dagaalameen inay u baxaan oo ay ka tagaan dhulkoodii oo dhulka la tagaan oo ay wax u bixiyaan. waxay keentay buu marka inay taasi muujisay ama astaan u ahayd ama barbila u ahayd dhalashadii waxa weeyaan mujtamaca islaamka oo marka ka bilaabmay Madiina. marka wuxuu leeyahay markaas ayaa laga soo tirinayaa oo miilaad iyo mujtamac markaas uu yimaada oo uu yimaada. wuxuu leeyahay oo xiisale uu ka sheekeynaya cilaaqaadkaas saddex inuu leeyahay rukun oo uu ku taagan yahay oo waaweyn. saddexdaas rukun waxa weeyaan buu leeyahay marka waxa weeyaan waa caalam al-ashkhas iyo caalam al-afkar iyo caalam al-ashyaa. saddexdaas uu sheegay marka wuxuu leeyahay cilaaqa iyo dabar ummad iyo bulsho isku haya, saddexdaas ayaa sal iyo gundhig u ah isla markaana u ah waxa weeyaan waxa ummadda isku haya iyo xabagta iyo dabarka isku haya kaas inuu yahay. oo kow afkaar iyo fikrado inay jiraan oo ummadaasi waxay ku wada jirto iyo waxay ku wada joogtaa afkaartaas inay jirto, dad afkaarta aaminsan oo wax isugu ah oo isu garabsanaya inay jiraan, iyo material iyo ashyaa marka waxa weeyaan afkaartaas iyo ashkhaastaas marka ay soo saaraan oo ay sameeyaan iyada lafteedii wax soo saarka iyo intaajkoodii ah isaguna inta badan inuu jiro. wuxuu leeyahay marka taas saddexda rukun ayaa u ah marka waxa weeyaan cilaaqaadka iyo isku ahaanshaha bulshooyinkana dabar weyn oo waxa weeyaan isku haya. waxyaalaha kale xiisaha leh uu kaga hadlayo Malik ibn Nabi buuga miilaad mujtamac waxa kamida asalka xiriirka bulshooyinku muxuu yahay. tusaale wuxuu leeyahay qofku markaan mujtamac ka tirsanayn ee uu iska nool yahay afkaar iyo aragtiyo uu la nool yahay ama uu u nool yahay aanay jirin waa fard ama wuxuu leeyahay qofkaasi waa kali, laakiin shakhsi buu noqdaa buu leeyahay marka uu mujtamac iyo bulsho xiriir iyo dabar u ka dhaxeeya iyo fikir iyo aragti uu taagan yahay ay timaado wuxuu noqdaa buu leeyahay ashkhaas. afraadaas marka waxay isku rogtaa buu leeyahay marka uu mujtamac u dhasho inay noqoto ashkhaas mabda iyo aragti iyo wax ka dhaxeeya oo ay wada leeyihiin uu jiro. afkaartaasina marka wax weeyaan waa kuwa keenaya marka dadkaasi inay isku dan iyo isku dareen iyo isku mustaqbal iyo isku si inay u socdaan inay yimaadaan. waxyaalaha kale xiisaha ka warramay waxa kamida muhiimadda iyo qiimaha weyn ee uu leeyahay dhaqanka iyo akhlaaqdu ay u leeyihiin wax isku ahaanshaha iyo dabarka bulsho iyo ummadnimo. wuxuu ka warramayaa oo tusaale ahaan soo qaadanaya wuxuu leeyahay guurka oo kale wuxuu leeyahay waa dabar weyn oo cilaaqaadka iyo xiriirka bulshada dhexdeeda ah xoojiya isla markaana keena ummaddu inay noqoto ummad wax isku ah, ummad waxa weeyaan ummadnimadeedu jirto, ummad la xeerar iyo dhaqanno iyo qaab ay u wada macaamalaan ragga iyo dumarku iyo guurka iyo qaabkay u tarmayaan inuu jiro xeer iyo tab iyo nidaam waxa weeyaan ayaa kamida buu leeyahay oo kamida xeerarka keena. waxyaalaha kale oo buugan kaga warramay waxa kamida sidee bay markaa ummaduhu u dumaan ama u baaba'aan. wuxuu leeyahay ummad meel jirta oo meel taal oo la yiraahdo waa ummad oo la ilaaliyo oo la dhoobdhoobo ama la ilaaliyo ama la horumariyo ma jirto, laakiin ummaddu buu leeyahay waa bulshooyinkaas isku tagay iyo cilaaqaadka isku haya. markay ummad dumaysana buu leeyahay dadku xataa maaha inay dumaan, laakiin waxa dumo oo kaliya wax weeyaan buu leeyahay oo googa oo burbura waa cilaaqaadka iyo dabarada iyo isku xidhka bulshooyinka duma buu leeyahay markay ummad dumayso.
tusaale ahaan wuxuu ka warramayaa uu leeyahay dumidda lafteeda iyo cilaaqaadka saddexdii shay ee marka ugu horeysa uu ka hadlayay iyaga laftooda waa kala halis badan buu leeyahay oo tusaale ahaan haddii afkaarta ay dumaan waa qodob haddii ashkhaasta iyo dadkii bulshada laftooda iyaga laftooda la dumiyo oo cilaaqaadkooda la gooyo iyaga laftooda waa dabar wax weeye waa dumid iyo dhibaato waxa iyaduna qodob kale oo saddexaad buu leeyahay ashyaada iyo materialka ay dadkaas haystaan in la dumiyo wuxuu leeyahay marka saddexdii rukun ee cilaaqaadku ku taagnaayeen oo duma ayaa keena bulshooyinka inay dumaan tusaale wuxuu soo qaadanaya marka Jarmalka oo kale wuxuu leeyahay burburkii iyo weeraradii Jarmalka ee lagu qaaday ka bulsho ahaan may dumin buu leeyahay afkaartoodii iyo ashkhaastoodii midna laakiin waxay dumisay oo kaliya ashyaadii iyo materialka ay haysteen taasina way fududahay buu leeyahay bulsho inay ka soo kabato laakiin halista ugu weyn ee aanay bulsho ka soo kaban wuxuu leeyahay ama hantida ugu weyn ee bulsho ay leedahay iyo qarannimadeedu buu leeyahay ashyaada ay haysato ma aha waa afkaarta ay haysato iyo fikradaha iyo aragtiyaheeda haddii aragtiyaha ay bulshada waxay isugu tahay ee ay isugu xiran tahay ee dabarka u ah la dumiyana buu leeyahay way adag tahay marka bulsho inay ay soo noqoto ama ay dib u soo noolaato waxaana ku noolaadaan buu leeyahay dulli iyo fool xumo waxa weeyaan inta ay dib uga dhalanayaan ama afkaartoodii ay soo nooleynayaan taasina waxay ku timaadaa buu leeyahay oo salwa inta badan oo lagu gartaayo astaamo u ah baan leeyahay in marka la arko dadku inay ka shaqeyn waayaan wixii ummad ahaan ay u taagnaayeen ama cilaaqaadkoodii inay ka shaqeyn waayaan dantii ummadnimo inay ka shaqeyn waayaan afkaartii u taagnaayeen inay ka shaqeyn waayaan oo u taagnaan waayaan dantii guud ee ummadnimo ay u noolaayeen oo ay ku soo ururaan marka to shakhsiga iyo to qofeed taasina wuxuu leeyahay marka waxay keentaa inay marka dadkaasi burburaan inay noqdaan kuwa marka u diyaarsan inay cid kale qabsato oo ay u duloobaan oo ay hoos joogaan cid kale dalluun dheer inay ku dhacaan ay adkaato marka inay ka soo baxaan waxaan tusaale soo qaadanaya mujtamacaadka waxa weeyaan dadka muslimiinta iyo isticmaalku sidii waxa weeyaan uu qabsaday wuxuu leeyahay isticmaalku xoog iyo hub iyo kuma qabsan laakiin wuxuu ku qabsaday oo kaliya waxa ahayd buu leeyahay in uu dumiyay ama uu go'go'yay waxa weeyaan dabarkii iyo cilaaqaadkii bulsho ahaan iyo ummadnimo isla markaana ay isugu soo urureen dadkii oo ay noqdaan kuwa aan dantii guud iyo afkaartii iyo ummadnimadoodii iyo qiyamkoodii iyo dhaqankoodii iyo mustaqbalkoodii fogaay ay ka shaqeynayeen ay u taagnaayeen aanay ka shaqeyn qof waliba tiisa oo ku mashquulo taasina ay keentay marka inay ashkhaas noqdaan ummadnimadii iyo mujtamacnimadii meesha ka baxdo taasi markay meesha ka baxdayna ay keentay buu marka inay noqdaan in si fudud marka loo qabsan karo si fudud marka loo gumaysan karo si fudud marka loo dulaysan karo haddii ummad rabta buu leeyahay marka inay marka ay dib u soo noolaataan waa in cilaaqaadkaas mujtamaca ee ummadnimo ee danta guuda ee dareenka guuda ee afkaarta guud ay u taagan yihiin ee wax isku ahaanshahooda ee wax xurkooda ee wax weeyaan mustaqbalka iyo visionka iyo aragtida guud ee ay u socdaan ee aaminsan yihiin loogu dagaalamayo ama loo hurayo inay u huraan runtii waa buug aad u xiiso badan muuqaalkan iyo ku kala ka ballaaran inaan ku soo koobi karin laakiin ujeedada ahayd in xogta guud ee buugga aynu halkan ku soo bandhigno si marka loo akhriyo oo loogu dhiirigeliyo oo dadku ay u raadsadaan waana buug laga heli karo dhammaan waxa weeyaan internetka iyo mareegaha bulshada oo si bilaash lagu degi karo aan kula talin lahaa cid kastoo akhri kartaana inay akhrido buugga kan ku xigay intaan ku kulmi doono waxaan idinku dhaafayaa buug wadaag waa adduun wadaag hoyga agabka waxbarashada iyo buugaagta ee Hema Books. Hema Books waxaad ka heli kartaa agabka waxbarashada noocyadooda kala gedisan, buugaagta dugsiyada barbaarinta hoose dhexe ilaa sare, agabka shaybaariyada sayniska iyo guud ahaanba buugaagta akhriska guud oo ku qoran Soomaali, Ingiriisi iyo Carabiga. Soo buuqo Hema Books oo baahi tir maskaxdaada.